soddon mahmaayo oo Ingiriis ah iyo waxa loo adeegsado. 1. Laba khalad xaq ma samayso. Marka qofku uu sameeyo wax xun, isku dayga argoosiga ayaa wax sii xumayn doona. 2. Qalinku seefta wuu ka xoog badan yahay. Isku dayga inaad dadka ku qanciso fikradaha iyo erayada ayaa ka waxtar badan isku dayga inaad dadka ku qasabto inay sameeyaan waxaad rabto. 3. Marka Roomo joogto samee sida Roomaanka. U dhaqan sida dadka kugu xeeran u dhaqmaan. Weedhan ayaa laga yaabaa inay ku anfacdo markaad u safraysid dibadda. Waxaad ogaataa inay dadku u sameeyaan si ka duwan sida aad caadaysatay. 4. Giraangirta qayladhaanta ahi waxay heshaa dufan. Waxaad heli kartaa adeeg fiican haddii aad wax ka cabato. Haddii aad samir ku sugto, ma jiro qof ku caawinaya. 5. Dadka ku nool guryaha dhalooyinka ah waa inaysan dhagaxaan tuurin. Ha dhaleeceyn dadka kale haddii aadan adigu kaamil ahayn. 6. Rajo wanaag laakiin u diyaar garow kan ugu xun. Tani waxay u muuqataa si cad. 7. Shimbiraha baalasha oo wada socda. Dadku waxay jecel yihiin dadka kale ee iyaga la midka ah. 8. U dhow asxaabtaada, cadowgaagana isku soo dhawee. Haddii aad leedahay cadow, iska dhig inaad saaxiib la tahay intii aad si cad ula dagaalami lahayd. Sidaas ayaa u ogaan kartaa waxay qorsheynayaan. 9. Ma jirto wax la yiraahdo qado bilaash ah. Waxyaabaha bilaashka lagu bixiyo mar walba waxay leeyihiin kharash qarsoon. 10. Ma jirto meel sida guriga oo kale ah. Guriga ayaa ah meesha ugu raaxada badan. 11. Tiktoorku waa qaybta weyn ee geesinimada. Mararka qaarkood waxaa muhiim ah in la ogaado goorta la isdhiibayo oo la cararayo halkii mar walba lagu dhaqmi lahaa geesinimo oo laga yaabo in ay dhaawacmaan. 12. Shimbirta hore waxay qabsataa dixiriga. Waa inaad toostaa oo bilowdaa shaqada goor hore haddii aad rabto inaad guulaysato. 13. Marna hadiyadda afka ha ku eegin. Haddii qofku siiyo hadiyad, ha weydiin. 14. Dadku waxay caawiyaan kuwa naftooda wax tara. Ha sugin inay wax wanaagsan kuu imaadaan. Si adag u shaqee si aad u gaarto hadafkaaga. 15. Si fudud u imow, si fudud u tag. Markaad dhaqso u hesho lacag, sida inaad wax ku guulaysatay, way fududahay inaad ku cayaarto ama aad si dhaqso ah u lumiso. 16. Ha qaniinin gacanta ku quudisay. Haddii uu qof lacag ku siiyey ama ku caawiyey, waa inaad ka taxadartaa oo aadan ka xanaajin ama aadan wax xun ka sheegin. 17. Wax walba oo wanaagsan waa ay dhamaanayaan. Ma sii haysan kartid nasiib wanaagsan ama madadaalo weligaa. Ugu dambeyntii way joogsan doontaa. 18. Haddii aadan garaaci karin, ku biir. Markaad isku daydo inaad beddesho dabeecadda qof kale oo aanay shaqaynayn, waxaa laga yaabaa inaad beddelkeeda beddesho. Tusaale ahaan, haddii aad isku dayayso inaad ka dhigto ardayda aad isku fasalka tihiin inay xoogga saaraan waxbarashada, laakiin ay rabaan inay xafladeeyaan. 19. Qashinka nin waa hanti nin kale leeyahay. Dad kala duwan ayaa fikrado kala duwan ka qaba waxa qiimaha leh. 20. Ma jiro waqti la mid ah kan hadda. Haddii aad u baahan tahay inaad wax qabato, ha sugin ilaa hadhow. Hadda samee. 21. Quruxdu waxay ku jirtaa qofka wax fiiriya. Dad kala duwan ayaa ku kala aragti duwan waxa quruxda badan. 22. Baahidu waa hooyada hal abuurka. Markaad runtii u baahan tahay waxaad ka fikiraysaa xalalka hal abuurka leh ee dhibaatooyinkaaga xalinaya. 23. Tababarku waxa uu kaa dhigaa mid kaamil ah. Waa inaad ku celcelisaa xirfad in badan si aad ugu fiicnaato. 24. Falalka ayaa ka hadal badan erayada. Kaliya inaad tiraahdo waxbaad samaynaysaa micno badan ma samaynayso. Dhab ahaantii in la sameeyo way adag tahay oo macno badan ayay leedahay. 25. Waxyaabo wanaagsan baa u yimaada kuwa sugaya. Samir yeelo. 26. Ukuntaada oo dhan hal dambiil ha ku ridin. Hayso qorshe gurmad ah. Ha isku halayn dhammaan lacagtaada ama waqtigaaga hal qorshe. 27. Daacadnimadu waa siyaasadda ugu fiican. Been ha sheegin. 28. Ha xisaabin digaaga inta aanay dilaacin. Waxaa dhici karta in qorshayaashaadu socon waayaan. Marka ha bilaabin inaad ka fikirto waxaad samayn doonto. Sug ilaa aad ka guulaysato, kadibna ka fikir waxa xiga ee aad samaynayso. 29. Haddii aad rabto in wax si sax ah loo sameeyo, waa inaad adigu samaysaa. Ha aaminin dadka kale inay kuu sameeyaan waxyaabo muhiim ah. Waa inaad adigu wax qabataa si aad u xakamayso tayada natiijooyinkaaga. 30. Waxaad faras u kaxayn kartaa biyo, laakiin ma cabi kartid. Haddii aad isku daydo inaad qof caawiso, laakiin aysan qaadan taladaada ama dalabadyadaada, iska daa. Kuma qasbi kartid qof inuu aqbalo caawimaadaada. Intaas ayuu ku egyahay. Fadlan haddii aad wax ka fahantay, sii faafi muuqaalkan.